daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadli doona ganacsiga guud ee deegaanka Doobley iyo xaaladda amni. Waxaan maanta booqannay anigii saaxiibka Nuur Wali Xirsi Nuur uga sabaha ganacsiga ee magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose. Anagoo wareysi kala duwan la yeelanay ganacsatada, waxaan ugu horreyn weydiinay bal inay noogu warbixiyaan ganacsiga guud ee magaalada sidoo hadda u socdo iyo xaaladda. ganacsiga magaalada dadka ka warbixiyay uu fiican yahay alxamdulillah. sababtoo ah Doobley waxa ku taala meel xuduuda, markay wadooyinku furan yihiin dhinaca Kenya waxbaan ka keenaa, dhinaca qaybta Soomaaliya waxbaa laga keenaa, isu socodka baabuurta uu furan yahay. ganacsigu uu fiican yahay alxamdulillah. sidoo kale amniga magaalada uu fiican yahay, nabadgelyada way fiican tahay. qolkiiba boqol waa Doobley meelaha ugu amniga iyo nabadgelyada fiican weeye. ganacsiguna aad iyo aad buu fiican yahay. alaabaha waxaan ka keenaa Nairobi, Dubai waxbaan ka keenaa, Muqdisho caasimadda Soomaaliya waan ka soo adeeganaa, Kismaayo oo caasimadda Jubbaland waan ka soo adeeganaa. marka ganacsigu xor weey, meel walba waan ka keenaa, wuuna fiican yahay isu socodkiisa iyo dhaqaaqiisa. movementiguna ma xuma, aad iyo aad buu fiican yahay. xaaladiisuna way fiican tahay aad iyo aad. marka haddaan idinka warbixiyo xaaladda magaaladu waa sidaas, ganacsigu aad iyo aad buu fiican yahay. waan ku faraxsanahay maasha Allah. Doobley jabigeeda iyo maasha Allah shaqadeena waa kala dhacsan tahay, oo waxaan ku faraxsanahay shaqadaas ay u kala socoto nidaamka iyo dastuurka maasha Allah, oo Allah noo sii kordhiyo. waxaan sii rajeynaynaa in dawladeena sii wanaagsanaato, oo dawlad fiican oo heer sare sii gaarto, oo meel horumar ay sii gaarto maasha Allah. waxaan ku faraxsanahay inaan shaqeysano oo shaqadeena xalaal ay noqoto, oo wax dhac iyo wax buuq iyo aan ka magan galno oo maasha Allah, oo amnigeeda oo noo sugnaado maasha Allah. ilaahay sidaan ugu sii wado. bismillaahi raxmaani raxiim. أنا مقعد وحوي إبراهيم هذا العلمي أو كم قدر إبراهيم هواي أو دولة جوه أو مقاعد كله توحيد لهذا. وأنا كل صعنا ما شاء الله وفي عنا جناح ثاني أمني جاي كله واديار. وأنا هبين كانوا حاجنا إلى شخص عبد الله لسه عنا بديله وجانا. وأنا قبلنا نبغى قبلنا ومش وفي عنا هذا قبل الله قبل يمكن الموينكا وفي عنا جوا. فاشين كان السوق كان وفي عينه ما شاء الله جناح ثاني وفي عينه. هبينكي لحساب عن قلبنا مالين يبين نواش قينا إلى بيك أسام قاعد وفرتها إمام معاني وشد برف علينا كل واحد قلنا حل كفتر واسعنا حل كفتر واسعنا. عطها قبيح وعلى لبينه ورويكم معه عطوا إلى ليته
kugu hado